beelweynta direeda ku dhaqan dalkani Kenya ayaa maanta shir ay ku qabteen magaalada Nairobi ayaa waxay uga hadleen dagaalkii ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka Lambar Konton. waxa ay ku dhaleeceyn dawladda federaalka Soomaaliya ayagoo sheegeen ciidamadii soo weeraray deegaankaasi ay ahaayeen kuwa dawladda federaalka ah isla markaana ay dadku ay u geysteen xasuuq ba'an waxaana cadeyn u ah in ay wateen hubkii gawaadhidii dawladda sida ay hadalka u dhigeen waxgaradkii beesha direed ee ka hadlay goobta nimankaas macruufka oo la yaqaano waxaan mooday hogaamiye kooxeedyadii in laga soo gudbay in dhacdo waa macruuf gobol waa macruuf how it can be possible oo yiraahdo waxaan qabsaday Lambar Konton wax lagu laayay oo hogaamiyaashaas qabqablayaashu wax ku laayeen waa ciidamadii dawladda waa dharkii dawladda waa tiknikadoodii 40 tiknikada baaba laysa shacabkaas guryahoodii baabiyay gabdhihii qabsaday raggii laayay culimadii laayay dawladdu ma ogana anagu ninka ilaahi waxaan u malaynayaa dawaani si kale wax u faansan laakiin sida dawladda og baan leeyahay wixii ka dhacay dawladda korkeeda alla ka shubay ma oran karo dawladdu iyadoo maskaxdeeda iyo maankeeda qabta ayay si ay og tahay oo ay qorshaysay oo dalaangaraysay inta ku maleegtay in shicibkii ay dawladda u ahayd ee soo doortay ay ciidan gelisay aan cadeyn haynin dambi ah kuma eedayn karo xaaladda ninka la taagay ay tahay beel danaheeda raacato weligeed horay u dulmin jirin dadka balse ayada dul lagu wadi in muddo ah u dulqaadan mayno wixii hadda ka dambeeya wax la yiraahdo dulmi hadda waqtiga xaadirka aan fadhino ciidamo laga diray gobolka Hiiraan oo saaxiibkay Faarax Laqayo uu diray oo ayaa dul taagan kabxan leeyahay oo kamida degmooyinka ay degto beesha u dhalateen marka waxaan u sheegaynaa Faarax gudoomiye Faarax waxaan u sheegnaa ma ka codsanayna inuu si degdeg ah oo ciidanka dulmiga ku socda ee magacii dawladda huban inay ka baxaan inta ka bacdi idinka arintii dhameeyay ragii ayaa dhameeyay adiguna waxaan ahay Suudaanka goormar hadaan ahay anigu dawladda ku talaabsan maayo cid kale ku talaabsan maayo idinka dhameeyay laakiin waxaan ku talaabsanayaa hadii aanu nahay bahweynta maanta direed aan Suudaankoodii ahay shicibkii ka hadlay annagu ku raacsanay Abdi Ibrahim Al Dheere Home Cable TV magaalada Nairobi